markii uu yaraa fahmi ayay dhimatay hooyadiis. aabihiina kalamuu kulmin naxariis, qaylo iyo handadaad mooye. qof u wanaagsanaa muuse jirin, aadi saaxiibkiisa mooye iyo qoyska saaxiibkiis. markuu aabihii ku qayliyo ayuu u soo carari jiray qoyska saaxiibkii, halkaasuu kala kulmi jiray naxariis iyo daryeel. markii uu qaangaar noqday fahmi, aabihii waxa uu ka saaray waxbarashadii, kadibna waxa uu ka dhigay birtume sidiisoo kalea. shaqadiina waa uu ku canaan jiray aabihii, kadibna waa uu baxsaday. waxaanu noqday derbi jiif, waxaanu ka mid noqday carruurta dibjirta. kadib markii uu weynaaday waxaabuu noqday tuug weyn oon waxba u aabba yeelin. maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa la kulmay saaxiibkiisa yaraantiisa. kadib waa uu waaniyey, waxaanu ku yidhi, saaxiib iska dhaaf tuuganimada, haddii aad dhaafi weydana askar ayaan kuugu yeedhayaa. noqo saaxiib mid ilaahay u toobad keena kana noqda waddadan khaldan. aad ayuu ugu xanaaqay fahmi saaxiibkiisa waaninayay. maalin maalmaha ka mid a isaga oo doonaya inuu xado ayaa wuxuu u dhacay gurigaasna waxaa lahaa saaxiibkiisa. kadibna waxa uu la kulmay oo uu arkay saaxiibkiis hooyadiis. kadib hooyadii waxay tidhi, hooyo maxaa kugu dhacay ninkaygiyo? miyaad gajoonaysaa? cunto ma kuu sameeyaa? kadib fahmi waxa uu soo xasuustay wanaaggii iyo naxariistii ay siin jirtay maadaamuu ahaa wiil rajaya. kadib waa uu ooyey markii uu maqlay hadalladeeda naxariista leh iyo sidai uga naxayso. waxaanu ku yidhi, run ahaantii anigu hooyo maan gaajoonayn. kadib shandadii uu qaatay ayuu u dhiibay iyadoo ay lacag ku jirto. kadibna arrin naxdin leh ayuu ku arkay. warqad ayaa ku jirta shandada, taasoo ay ku qoran tahay tabarucaad loogu talagalay wiil rajaya oo magaciisa la yidhaahdo fahmi. kadib fahmi waa uu ooyey, aad baanu u ilmeeyey markii uu warqadda ku arkay magaciisa. kadib hooyadii waxay tidhi, inankaygu hooyo la'aan maaha, uuna ila necab yahay cadaabta. ilaah baan ku dhaartay hooyo, waan toobad keenayaa, ilaah baan noo noqonayaa. hooyadii way garatay inuu fahmi yahay, wayna faraxday. waxayna ku tidhi, waan ogaa dhibkay kugu hayeen aabbaha iyo xaaskiisu, laakiinse may ogeyn inuu wanaagu ka awood badan yahay xumaanta. haddii ay garan waayeen inankaygiyo, ilaahay dartiis kaga saamax oo ku noqo gurigiinnii, ilaahayna u toobadkeen. waanu xanuunsanayaa aabbahaa, in la garab istaagna wuu u baahan yahay. soo xasuuso qowlkii ilaahay oo qur'aankiisa ku yidhi, فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. kadib fahmi isagoo ooyaya ayuu baxay. waxaanu u tegey aabbihiis xanuunsanaya. si wanaagsan ayuu u qaabilay aabbihii, waxaanu ka codsaday in uu saamaxo. aabbihii laabta ayuu gashtay, kadibna waa uu saamaxay. sidaas ayuu fahmi aabbihii kula noqlaa nolol wanaagsan. kadib markii ay naagtiisii u qabayna iskaga carartay. markii uu xanuustay daryeelse, laakiin wuxuu ka helay inankiisii u dili jiray una dhibaatayn jiray. ogsoonaada canaanta iyo xumaanta wax laguma hagaajiyo, naxariista iyo hadallada wanaagsan ayaa wax lagu hagaajiyaa. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حمزة وانا wanaagsan gabadhiisu 2 sano kadib waxa uu dhashay wiil. haddaba shaqada guriga waxa uu qabataa gabadh jaariyada oo wadanka Asia ka soo jeeda. madar yeesho nafteeda iyadoo jirkeedu isbedelay, noqotayna naag aad u buuran. bilooyin kadib waxay la yaabtay habdhaqanka gabadha jaariyada ee guriga u joogta. jaariyadaasoo ah mid mar walba ku mashquulsan nafteeda, qurxinta iyo habeentaba. haddaba gabadha guriga lahayd waxay soo xasuusatay hadalo oo ninkeedu mar ay aqalka doonaysay inay ka saarto jaariyada. uu yidhi iska daa. goortii uu ninku safar galay
ayaa gabadhan jaariyadda aad waxay u jeclaatay ilmaha yar, quluubteedana way siisay. shaki badan ayaa ku soo abuurmay gabadhii guriga lahayd. gabadhana aad ayay uga shakiday, weliba gurigeeda bannaanka ku yaala, mararka qaarna albaabkeeda ayaa furan. haddaba gabadhan jaariyadda ayaa waxaa u yimaadaa nin saaxiib ay yihiin. haddaba gabadhii guriga lahayd ayaa waxay istiri, gabadhan jaariyadda ninka u yimaadaa nin kale maahe waa ninkaaga, waan u dhuuman doonaa, waan isku qaban doonaa labadooda. haddaba fiidkii Xamse ayaa gabadhiisa ka codsaday inuu fiidka amba caawa uu soo raagi doono oo asxaabtii waqti la soo qaadan doono. waxay ku tiri, orod oo iska tag, waa caadi dhib male, anigu waan iska daalanahay kumana sugi karo. Xamse wuu qoslay, wuxuu yidhi, umaa walbad sugi jirtay. markii uu baxay Xamse waxaa timid jaariyaddii iyadoo isu soo qurxiso cadarku saa uga soo kamkamayo. waxay u sheegtay gabadhii guriga lahayd baa tidhi, anigu waan hurdo tegayaa. waxaanay ku tiri, jikada gal oo ka shaqee hawsha kuu taalaa. shaqo badan ayay u diyaarisay. intay jaariyaddii jikada ku jirtay ayay gabadhii waxay tagtay gurigii jaariyadda. goorta haddaba miyaaraddii ayay isku eegtay. goorta miyaaradda waxay ku aragtay muuqaalkeedii oo isbedelay, jaariyadduna ay ka shidan tahay. waxay nafteedii ku tiri markaa, jaariyaddani adiga aad bay kaaga qurux badan tahay, oo waqti ay isku qurxiso ayay heshay. cabaar ka bacdi waxay maqashay albaabka dibadda oo lasoo qarqaraacayo. nin aanay weli arag ayaa soo galay. way qaylisay. jaariyaddii ayaa soo carartay guriga ugu timid. waxayna ku tiri gabadhii, kani waa ninkaygii, muddo 3 bilood gaadhaysa ayaan isqabnaa. haddaba gabadhii guriga lahayd way carartay oo qolkeedii ayay gashay. waxay istiri, bal hadduu Xamse ahaan lahaa ninkaa ii soo galay, naftaydu say noqon lahayd. kadib alle ayay u toobad keentay danigaas ay ninkeeda ay daniday. waxaanay soo urursatay agabkii ay isku qurxin jirtay. muddooyin ka hor ay iska daysay ayay dib u bilowday. goorta uu ninkeedu soo noqday haddaba wuxuu arkay xaaskiisii soo jeeda. isagoo qoslaya ayuu ku yidhi, maxaa xilligan ku soo jeediyey oo kugu dhacay? shacnigan iyo quruxdan ayaa ku sugayaa, maanan soo raageen marnaba. gabadhii haddaba way qosashay, su-aalna way weydiisay. waxay ku tiri, maxaad iigu sabirtay oo intaasoo dhan aad ii sugtay ood marnaba adnaa kale aad u gursan weyday? wuxuu ku yidhi, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa nagula dardaarmay dumarka wan wanaagsan. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.